Maxay tahay khatarta dhirta shisheeye u leedahay dhulka Soomaalida? Sidee bay u saameeyaan ummadda iyo korriinkeeda? Waxaa muddadii dowlad la'aanta Soomaaliya waddankeena ku batay ururo yaryar oo samafal ah kuwaas oo sheegay inay dadka ka caawiyaan dhiraynta. Haddaba ururadaasi wax qiimeyn ah kuma sameeyaan cawaaqib xumada deegaan ee ka dhalan karta waxqabadkooda dhiraynta. Dhibaatooyinka ku saabsan isticmaalka dhulka ee ay hay'adahaasi keenaanna waxaa ka mid ah inay sida qaalibka ah la kaashadaan khubaro shisheeye ah oo aan aqoon u lahayn dabeecadda dhulkeena. Haddaba dhirta la keenayo dhulkeena waxaa qasab ah in baaritaan lagu sameeyo waxa ay ku keeni karto deegaanka, waxaana lagama maarmaan ah in la hubiyo inay jiraan cudurro isir la leh geedkaas oo waxyeeleyn kara dhirta inteeda kale. Marka qof kasta waxaa muhiim ah oo raba inuu wax beerto ama gurigiisa ha ku beerto ama meel magaalada ka baxsan ha ku beertee inuu iska hubiyo dhirta uu beeranayo waxa ay yihiin iyo sida ay deegaanka u saameyn karaan iyo inay bulshada wax anfici karaan ama inay waxyeeleyn karaan dhirta kale ee meesha ku beeran. Waa aad iyo aad bay muhiim u tahay. Tusaale waxaan u soo qaadanayaa dhirta shisheeye ee dalkeena waxyeeshay. Waxaa ka mid ah geedka ay Soomaalidu u taqaano garanwaaga. Geedkaas waxa uu markiisii hore ka bixi jiray waddanka Maraykanka, gaar ahaan gobollada California, Nevada, Colorado iyo Texas. Kadibna waxaa la baray oo uu u gudbay dalal badan oo caalamka ah. Geedkaas hadda waxa uu qabsaday qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Waayo waa geed markaba hore ka baxa oo isagoo istallaala. Waa geed si dhaqso leh ku tarma oo ay khubarada sayniska dhirtu ogaadeen xawaaraha tallaal iyo taran ee geedkan. Geedkaas waa geed dhulkeena qariib ku ah, waxyeello weynna gaarsiiyey deegaanka. Geedkaas waxa ay hay'adda caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka u qaabilsan ee loo yaqaano International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ee marka lasoo gaabiyo magaceeda loo yaqaano IUCN ay u aqoonsatay inuu ka mid yahay 100-ka geed ee adduunyada ugu waxyeellada badan. Geedkan Soomaalidu garanwaaga u taqaano dabeecadihiisa waxaa ka mid ah: 1. Inuu dhulka isku ballaariyo oo uu ilayska u diido dhirta kale ee yaryar, taas oo u dhiganta aasidda iyo dilista dhirta kale. Inuu isagu isbeero oo marka ay caleemihiisa xooluhu cunaan meel kasta oo ay ku saxaroodaanna uu ka soo baxo. Inuu yahay geed aad ugu adkaysi badan abaarta biyaha oo kala soo baxa biyaha ilaa iyo 80 mitir oo dhulka hoostiisa ayuu awood u leeyahay geedkaas inuu biyaha kala soo baxo. Geedkan garanwaagu waxa uu qabsadaa biyo mareennada, beeraha, waddooyinka hareerahooda iyo magaalooyinkaba. Geedkan waxaa fidiya biyaha socda oo meelo fogfog geeya. Iniintiisa iyo markay xooluhu cunaan ayay iniintiisa saalada raacdaa oo uu ku fidaa meel kasta oo ay gaaraanba. Geedkan waxaa lagu yaqaan taran xad dhaaf ah oo sababta inuu xataa meesha ka saaro dhirtii waaweyneed sida gobka, quraca iyo geedihii noocyada badnaa ee dooxooyinka daafaheeda ka bixi jiray. Geedkani waxa uu kale oo uu qabsaday magaalooyinka iyo tuulooyinka oo aanay dadku aqoon u lahayn sidii ay isaga xakameyn lahaayeen. Haddaba waxaa habboonaan lahayd in geedkaas waddankeena laga dabar jaro si loo yareeyo khatartiisa.